kulanti wacan daawadayaal waxaa halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii u dambeeyay fashil ku yimid shirkii golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo maalintii labaad dib u dhac ku yimaaday iyadoo labada dhinac uu soo kala dhaxgalay kala shaki xoogan xogihii u dambeeyay ayaa halkan kugu soo gudbin doonaa maxaad kala socotaa shir xasaasi ah oo magaalada caasimada Muqdisho si gaar ah uu kaga soconayo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed maxay kaga arinsanayaan xogihii u dambeeyay ayaa ku soo gudbin doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan balelkana furso ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii subscribe inoo taayna muuqaalkan oo share garay laakiin oo saarso gaar asxaab badan oo ku mahadsan tahay daawashadaada aynu ku bilaabnay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale Villa Soomaaliya shirkii u dhaxeeyay ayaa markaan ku yimid dib u dhac maalintii labaad iyadoo shirkan maalintii Khamiista uu ka furmay Villa Soomaaliya madaxtooyada horeyna ay u diidanayeen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed marka laga reebo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo doonayay in villada lagu qabto shirkaasi halka madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay diidayeen in shirkaasi hadii lagu qabanayo Villa Soomaaliya aysan ka qayb galeenin ugu dambeeyna laga dhaadhiciyay sidii shirkaasi uu Villa Soomaaliya uu qabsoomi lahaa maadaama in ka badan 2 toddobaad ay ku sugnaayeen magaalada caasimada Muqdisho sababta ugu weyn ay u yimaadeen ay ahayd ka qaybgalka gogosha ay fidisay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo warqada ee gogoshaasina ay ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare isku soo wada duubo khilaaf xooggan kadib waxa la isku raacay in shirka uu ku qabsoomo Villa Soomaaliya waxaana maalintii Khamiista ahayd la arkayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ay galbinayeen ciidankoodii gaarka ah ee ay kala yimaadeen maamul goboleedyadooda ay si toos ah ay u tageen Villa Soomaaliya balse aysan ku xaadirin goobtii shirka uu ka socday ciidanka banaanka lagu reebay iyadoo amnigoodana la sheegay inuu damad qaaday mahad salaad oo ah taliyaha hay'adda wasugida ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed markii miiska wada hadalka la isugu yimaaday waxa la guda galay ee ajandayaasha la doonayay in marka hore laga hadlo iyadoo ajandaha ugu muhiimsan uu ahaa ka hadalka doorashada lagu wado in dalka ay ka dhacdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah shakhsiga sida gaarka u xiiseynaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah halka mucaaradkana ay ku andacoonayaan waqtiga yar ee u haray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in dalka doorasho qof iyo cod ah aysan kaga dhici karin waxa sidoo kale la isla soo hadal qaaday doorashada ee maamul goboleedyada dalka iyadoona doorashadaasi laga reebay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoona ay u muuqato in dawladda federaalka Soomaaliya markan si qasab ah ay ku aqbashay in Axmed Madoobe uu yahay madaxweynaha Jubbaland maadaama ay dhowr jeer hore ay weerar afkaasi toos ah ay ugu qaadayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana Axmed Madoobe lagu eedeynayay in uusan ahayn madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland balse uu yahay shakhsi kaligiis isku caanashubay isku soo wada duubay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xilligan waa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo sida rasmiga ah u aqoonsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ee la sheegay in labada bil u hartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dhacdo doorasho madaxtinimo golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa ku dooday in doorashada ay noqon doonto doorashadii dadbaneed oo horey madaxweynayaashaasi loogu soo doortay halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isna uu halkaasi uu ku dhaga adeegay khilaafkaasi yimid darteeda shirka ayaa lagu kala tagay waxaana mar kale la isku balamay in uu maalintii shalay ahayd dib loogu laabto balse mar kale dib u dhac ku yimid shirkaasi aan la isku laabanin rajadu ayaa waxay ahayd in maanta mar kale golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay gaaraan villada si shirkaasi loo sii ambaqaado balse mar kale maanta warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in shirka gabi ahaanban uu baaqday waxaana markaan uu qarku u saaray yahay in fashil uu ku soo dhamaado maadaama maalintii koowaad uu kaliya shirka uu furmay isla markaana uu ku soo dhamaaday isafgarad la'aan maalintii labaad loo balamayna uu shirka qabsoobay maalintii saddexaad oo maanta ku beegan shirkaasi uu dib u dhac ku yimid ilaa hadda labada dhinac ma aysan shaacinin sababaha rasmiga ee shirkani dib u dhac u keenay balse warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in labada dhinac uu soo kala dhaxgalay khilaaf ku aadan kala aragti duwanaanshaha arimaha ee laga doodayo
golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa xilligan waxaa la soo warinayaa in shir ay ku yeelanayaan magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan Hotel Tagaale oo ay ka agdhow yihiin hotelka ay degan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. Shalay ayaa sidaan oo kale waxa uu shir ugu qabsoomay Hotel Tagaale oo shirkaasi oo saacado qaatay iyadoo shirkaasi ajendayaashii looga hadlay iyo sidoo kale waxyaabihii ka soo baxay aanan warbaahinta la wadaageen balse shirkaasi uu ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin kaliya ay gudaha ay ku sugnaayeen golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. maanta ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in shirkoodii halkiisa ay ka sii ambaqaadeen isla markaana ay ku diyaarsadaan ajenda dhowr ah oo mar kale ay kula hortagi lahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoona gabi ahaan bay u muuqato in shirkan uu yahay mid laga cagajiidayo. warar hoose ee soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay iska soo xuleen guddigaasina uu ka cagajiidayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoona lagu eedeynayo inuu doonayo in shirkaasi gabi ahaan uu fashil uu ku soo dhamaado maadaama markii horeba shirka markii loo balamay oo ku beegneed 1 bisha uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka meermeerayay qabsoomida shirkaasi balse culeys la saaray darteeda shirkaasi uu qabsoomay. haddana waxaa laga cabsi qabaa in shirkan uu mar kale in fashil uu ku soo dhamaado maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ay ku laabtaan maamul goboleedyadooda iyadoona wax natiijo ah aan ka soo bixin shirkii u dhaxeeyay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya. lama oga halka ay arintani ay ku dhamaan doonto balse dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxay ku sheegayaan in shirkani wax natiijo ah ay ka soo bixi dooneen maadaama labada dhinacba ay mowqif adag ay kala taagan yihiin isla markaana midka kale uusan dooneynin in uu ajendayaashiisa uu ka tanaasulo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku dhagan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah halka in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay ku doodayaan in xilligan aysan macquul ahayn in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah maadaama labada dhinacba ay ku adkeysanayaan in walba go'aankiisa ayaa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay ku sheegayaan in arintani ay u muuqato in shirka lagu kala aragti doonaansho uu ka muuqdo isla markaana u muuqda mid lagu kala tagi doono oo wax natiijo aysan ka soo bixi doonin. wixii xogo ay ku soo kordhay la xiriira shirkan muuqaaladeena xiga ay idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ugu soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhangan balalkana furasi ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahay muuqaalkan oo share garay lagana soo gaar asxaab badan oo ku maasanta daawashadaada.